Yeah. Are you a South African national? Yes. And have you already been processed? Have your paperwork been assessed and all? No, I'm still waiting for the stamp. Yeah. inda adeeg hadda maqashid ninkaan dhalay ninkaan waxa waaye red hand waa dambiile gacanta lagu qabtay waliba dambiga ku sii adkeysanayo waa nin Zimbabwean oo baasaboor South African oo fayga wato isla markaana sheeganaya inuu yahay South African xanuunsan yahay boorarka lagu celiyay waliba complaints qaba soo baasaboorkiisa marka laga qaaday la arkay fursad la sii saxana loo sameeyay xadka waxa lagu qabtay Zimbabwe iyo South Africa baasaboorkiisa inuu fayga marka laga dib loogu celiyay maadaama dhanka dhinaca dalkiisa wali uu joogay amana caawin shibaa laga yiri marka inda adeeg wuxuu taagan yahay xuquuqdayda ayaa lagu duntay anigu South African hada loo hadalay wariye ayaa wareysanayo TV maxalli oo Koonfur Afrika ku yaalo oo loo wacay waliba leeyahay ninkan wareysa bal waa xanuunsanahay daawadeedii ma cunin xuquuqdayda lagu xadgudbay uu taagan yahay bal aan warbixintiisa daawana bal horta. Talk about being caught red-handed. A short while ago, live on ENCA, Border Management Authority officials caught a man attempting to cross the Beit Bridge border post, allegedly using a fake passport. It was my first day where I was visiting in Zimbabwe. But what I saw, what I can see, I will never ever again visit. Because since from 6 o'clock I was here. Even now I'm still around here. Yeah. What is the reason for the delay? I don't know. No one have explained to us. Yeah. Where do you come from? Where did you travel from? I was in Zimbabwe. I went to visit a place called Gwanda. Yes. Yeah. Are you a South African national? Yes. And have you already been processed? Have your paperwork been assessed and all? No, I'm still waiting for the stamp. Yeah. And you see, it's very bad because I'm. ninkan bilowgii oo qalad ku dhacaha wuxuu leeyahay markii ugu horeysay maalintii ugu horeysay aan Zimbabwe maada marka I'll never ever visit mar dambe soo ma booqan doona camal waxa la weydiinay hadana xakee ka timid oo socosho markaasoo Zimbabwe leeyahay afka hadana afka ka dafay hadana ka soo noqon hadana xulay Blaze College Uganda uu leeyahay markaasoo wuxuu sameynayaa asaga dhanba inuu been sheega waa jareena ma lagu caawiyaa ما ولي معهن إلا هاد إستانبول ميل نتاعي اللي يقولفت وياه بلا نقص عنه بلا دني. Your paperwork been assessed and all? No, I'm still waiting for the stamp. Yeah. And you see, it's very bad because I'm sick. You see, I got an epilepsy. I even fall that side. You see, yeah, because I can't manage to drink. I didn't manage to drink my medication. Yeah. When I asked them, okay, they took my passport. And then I went there. When I come back, I found another person. She said, you must get your passport. So I can't remember the police who took my passport. So you don't have your passport on US with you? No, now I got it. They give it back to me. Yes. All right. They must stamp it first. What's your name, by the way? Masipa. Mazimba. Masipa. Masipa. Where are you from in South Africa? Polokwane. All right. Thank you so much for your time. كان حليه بوليسكي كقاعد باسبورك ما حسوسه كرو مركز على يدينا سو افريقيا ما تها وتين هذاك قبل كيك سو جده اللي مركز له بلوغواني ما مال انت بدن زيمبابويان كيو اي درس له ادي ودغان اسحانك لو سمي waxa la hadalay اسحانك loo sameeyay iyadoo la xirin oo la xiri karo la iska sii daayay wali inda adeeg inuu soo afrika ku sii kala raba nin la yaabo caadi ma in halistiisa wato